ma ogtahay muwaadin in dalkeena ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 codkaagana ay ku tartami doonaan musharaxiin iyo xisbiyo siyaasadeed doorashadaasi waxay fursad kuu siin doontaa in aad ka qayb gasho cod iyo ra'yina ku yeelato talada iyo mustaqbalka dalkaaga guddiga doorashooyinka waxa uu odayaasha dhaqanka uga mahadcelinayaa dadaalkooda iyo doorka muhiimka ah ee ka soo qaateen dib u unkida dawladnimada Soomaaliya iyo in ay sidoo kale dalka soo gaarsiiyeen xilli loo diyaar garoobayo doorasho qof iyo cod ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu ka shaqeynayaa in laga gudbo nidaamka qabaliga ah isla markaasna dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda doorasho dib loogu soo celsho muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa ay 2020 fursad u heli doonaan in ay codkooda ku doortaan dadka ku matali doona xukunka dalka haddaba waa maxay doorashadu waa nidaam ay codbixiyayaashu ku doortaan wakiiladooda iyo hogaankooda deegaan gobol iyo qaran doorashadu waxaa sidoo kale lagu cayimaa wakiilada iyo hogaanka ay yeeshaan hay'adaha kale sida xisbiyada iyo ururada siyaasadeed maxay tahay muhiimadda doorashadu waxa ay leedahay 5 muhiimad oo waaweyn kuwaasi oo kala ah sharciyad iyo awoodsiinta dawladda doorashadu waxa ay shacabka siisaa awood la xisaabtan doorashadu waxay u fududeysaa codeeyayaasha in ay wakiilo u doortaan dadka ay u arkaan in ay matali karaan doorashadu waxa ay fursad ay ku tartamaan siisaa muwaadiniinta mudan ee kartida hogaamineed leh doorashada waxaan uga gudbaynaa nidaamka dadban ee uu saldhigga u yahay qabiilku